Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Daawadayaal meel kastoo adduunka aad ka joogtiin waxaa idin leeyahay waxay idin tahay wanaagsan. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago astaamaha jacaylka ka mid ah. Astaamaha jacaylka ka mid ah. Jacaylka dhabta oo guuleysta waa midka kaliya laga helo qodobada soo socda, waana midka kaliya ee horumarka nololeedka gaarka ah. Nambarka koowaad, hadiyad isku keenida. Hadiyadaha la isku keeno qasab ma aha inay noqdaan waxyaabo aad qaali u ah. Waxaa muhiim ah in qof walba waxa uu jeclaysto uu qofka kale surprise ugu dhigo. Nambarka labaad, waqti in la isa siiyo aad u fiican tahay. Dadka isjecel waa dad waqti badan isgeliya oo waqti badan oo qurux badan isla qaata, ayagoona waqtigaas diyaar u ah inay xoojiyaan oo ay sare u qaadaan jacaylka ka dhaxeeya. Waana midka ka mid ah meelaha lagu kala garto qofka sida dhabta ah ku jecel iyo qofka kale. Nambarka saddexaad, inay iskaalmeeyaan ama iscaawiyaan. Dadka isjecel waa dad iscaawiya, isna garab taagan waqti walba, jecelna in mid walba midka kale uu caawiyo nolosha. Jecel inuu la sameeyo howlaha adag, jecel inay iska samata bixiyaan waqtiyada aadka la iskugu baahan yahay. Waa mid ka mid ah meelaha lagu kala garto qofka sida dhabta ah ku jecel iyo qofka kale. Ileen hore loo yiri saaxiibka saxda ah waa saaxiibka ku garab taagan waqti aad baahi dareento. Nambarka afraad, isdhiirigelin. Qofka sida dhabta ah ku jecel waa qof mar walba jecel inuu ku dhiirigeliyo, waana qof mar walba ku noqda shidaalka aad ku shaqayn lahayd. wuxuuna mar walba kugu dhiirigeliyaa inaad wax walba samayn karto, oo aad noqon karto qofka koowaad ee meel walba oo aad nolosha hamiso, maadaama aad asaga u tahay qofka koowaad noloshiisa. Nambarka shanaad waa nambarka ugu dambeeya, is-aaminida. Dadka sida dhabta ah isku jecel waa dad mar walba is-aamina, isku kalsoon, midba mid kalsoon yahay, nolol kasta isku sir qarsada, oo mar walba midba midka kale oo ka aamin badan yahay xitaa naftiisa. Astaamaha jacaylka halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Fadlan haddaad channelka ku cusub tahay, subscribe iyo like